wararkii naga soo gaaraya magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta barqadii uu halkaasi ka dhacay qarax noociisa uu yahay miinada dhulka lagu aaso taasi oo lala damacsanaa in la eegto ciidamo ka tirsan maamulka kumeel gaarka ee Jubba gaar ahaan ciidanka nabad sugidda taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska saldhigga magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Sharmaake oo loo yaqaan Aadan Cadde oo la hadlay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qaraxaasi uu maanta magaalada ka dhacay isla markaana uu ku dhaawacmay hal ruux sida uu sheegay balse khasaare kale uusan geysan waxa uu taliye ku-xigeenka intaasi ku daray in ciidamada ammaanka magaalada Kismaayo howlgal ay ka sameeyeen goobta qaraxa uu ka dhacay ay ku soo qabqabteen 4 ruux oo lagu tuhmayay inay qaraxaasi wax ka ogaayeen kuwaasi oo hadda saldhigga booliiska magaalada Kismaayo su'aalo lagu weydiinayo maanta magaalada Kismaayo waxa ka dhacay qaraxaas oo lagu ay nimanka dhagarqabayaasha ugu talagaleen inay maartay ku barteen tilmaameen Suudaan ciidanka nabad sugidda asay yeeshay wax khasaare ah oo uu geystay qaraxaas ma jiro markii laga reebo cunug yar oo shacab ah oo dhaawac yar u gaaray waa gartay nooca qaraxa muxuu ahaa nooca qaraxa wuxuu ahaa miinada dhulka lagu Kismaayo xagee buu qaraxan ka dhacay magaalada dhankee tilmaam ka bixi qaraxaas wuxuu ka dhacay xaafadda laga baxsid cad ku yaalo buu qaraxu ka dhacay waayahay ciidamadu maxay tallaabo oo ay qaadeen marka qaraxa uu dhacay kadib kulay waxaan u baahan anigu hadda ilaa 4 qof ilaa 5 qof oo qaraxaas la xidhiidhinayo oo la hayo baa jiro hadda saldhigga booliiska ee dadkaasi ku xiran yihiin baarid baana ku socota oo laakiin wax cad oo hadda dadkii qaraxa ka dambeeyay ma hayno laakiin dhowr qof oo la soo qaatay magaalada Kismaayo muddooyinkii u dambeeyay waxa ka dhacay falal lid ku dhanka ammaanka iyadoo dad badan magaalada lagu dilay inkastoo maamulka kumeel gaarka Jubba uu iska fogeeyay mas'uuliyadda dilalka ka dhaca magaalada Kismaayo haddana waxay sheegeen inay ku dadaalayaan xaqiijinta ammaanka magaaladaasi